وجيه فضن بيشاء مركا dhibku waa dhacaya xagga sokay xagga shay dhibku waa gaaraya marka guulada taaban karo laga gaaray la sanaad hadeer waa xor iyada ismaamusha waa aragtay adduunka oo dhan baa tagaya laakiin saas ay tahay dagaalka ma dhamaan waa tagaraad dad badan baad la kulanteen oo Itoobiya ka mid tahay gudi ah odayaal reer Muqdisho ka mid ah arrimaha maxaa lagu soo kordhiyay anagu ma oran karo Itoobiya ka qosatay waxaan waraysi ka qaadanay Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed ahna afayeenka dhaqanka isimada Sool Sanaag iyo Cayne ku soo dhaw Garaad waa dhawahay Yaasiin waa tahay Garaad waxa rabnay bal xaaladii ugu dambeeyayna war laga sii soo ognahay in dagaal ay ka socdaan magaalada Laascaanood iyo Daafeeda والله دجال كاسمو صعدا ما نتشوكسدو ما أنت رمضان فرتهاي وهو بلودي ساك أيو برغدي بلودي نمان كاس ورد تري دتك مدن لين تري وأن تحكيرين إن بيس بركيسان إيو ما أرت بلاد نمان طوانا أيها صور ورد أول شوكت وهنش تورد كاس مركز ساك صور وردين إلا حتى أنا صعدا وحي خسارة يدباتنا كل دبوك يستي لوادين على مركز كل dib un baa laga soo sheegi doonaa wixii marka aan xaaladda la soo ururiyo laakiin hadeer kuma sheegi karo khasaaro soo yahay waa tagaraad dagaalkani wuxuu socdaa muddo bila ka badan qiyaastii dad badanna way u gurmadeen markii la yiraahdo beelaha harti aragti ahaan ilaa meeshii la taagan yahay ilaa intii dagaalku ka bilowday galgaraad arrintaa wallahi waa dagaal waa socdaa dagaalkuna waxa weeye wajiye badan buu yeeshaa marka dhibku waa dhacaya xagga sokay xagga shay dhibku waa gaaraya marka maxaa saas wuxuu noqon waaya dagaalka lama yiraahdo sidoo doono dagaalku u dhacaa dagaalku waana socdaa guulo badan waa laga gaaray Laascaanood iyo yani waxay haysteen 70 kilomitir ka sokaysa oo maaragtay Tukaraq bay joogeen guulahaas oo dhan waa laga saaray marka guulada taaban karo laga gaaray Laascaanood hadeer waa xor iyada ismaamusha waa aragtay adduunka oo dhan baa tagaya laakiin saas ay tahay dagaalka ma dhamaan waa tagaraad dad badan baad la kulanteen oo Itoobiya ka mid tahay gudi ah odayaal reer Muqdisho ka mid ah arrimaha maxaa lagu soo kordhiyay arrimahaasi way jiraan inaan la kulannay Itoobiya iyo dhaqanka maaragtay koonfurtaba marka way kale maahay koonfurta oo dhan maaragtay baydhabo iyo digil mirfle iyo waa ku jiraan odayaashaas way joogaan way cusub yihiin shalay bay yimaadeen Garowe waxaan u socdaan inay dhulka tagaan marka insha Allah iyagu waa warkoodu waa bilow hadda yimaadeen marka waxay la socdaan iyo wax soo kordhiyaan way arki doonaa insha Allah warba sheegaya Garaad in Itoobiya ay ka qoosatay markii hore ay soo dirtay in qolada Soomaaliland ay argo u dirtay in ay dirtay arrintaas xaqi ku dumeysay anagu ma arkaa Itoobiya way qoosatay Itoobiya isku day bay samaysay ninka naamar bay siisay meel dadka halayna ka bax meesha ku tiri waa ku amar diiday ma uu sameeynin marka halkaas iyadoo taagan baa anagu ugu dambeysay marka ma arkaa Itoobiya waa qoosatay inay ku jirto iyo inay ka baxday maartay yamahan wax ka soo cusboonaaday ma aan arag laakiin anagu ma arkaa Itoobiya ka qoosatay kulankii hore Garowe Garaad ku yeerteen gudigaas Itoobiya ka socota kulanka dambe ma sameeyeen Itoobiya ma mar baa la kulanay anaga xaq raadi bay ahaayeen waa yimaadeen dhaqanka Garowe kula kulmay dhulka bay ku noqdeen ka bacdina waxa weeye casuumaday keeneen waxay yiraahdeen xagga noogu imaada dabeedna waxaan ku nimi waxa weeye habada aan joogsan lama tagi karo ninkan sidoo ka ballan qaaday habada joojiyo oo ka baxo meesha marka isagii baa ku dhagaadayay oo markaas hawsha dhinaciisa ka socon weeday dabeedna saas lagu kansalay habad joojintii waa tii ay jabtay oo baaqatay maxaad ka jawaabteen taas oo sheegnay adduunkan uu sheegnay inaan habad joojin ayna jabina maba u sameyn habad joojin ma u sameyn marka Itoobiya wuxuu u sheegay habada waa joojinaya wada hadalna waan ogolahay waana guuraya intaas uu sheegay marka Itoobiya waxay ogaatay inuu intaba sameynin marka saasay halkaas istaagtay waa tahay doorka odayaasha digil iyo mirfle iyo reer Muqdisho ee idin yimid afkaarta aad ka wada hadasheen iyo kulankii koowaad aad ku yeerteen caasimada Puntland Garowe bal iyada wax naga dheh waa la soo dhaweeyay aad soo dhaweyn lagama wada hadlin ilaa ay meeshii tagaan oo dhaqankii la kulmaan oo 3 la kulmaan oo Laascaanood dhibka ka dhacay arkaan oo xaqiiqada arkaan Garowe inta lagu la hadlo wax looguma sheegayna walba khusuu ma ahayn waxay hadin soo dhaweeyo la geeyo meesha dabadeedna xaaladda indhooda ku soo arkaan marka in Garowe laga wada hadlo oo wada hadal ka dhaco khusuu ma ahayn lagama hadlin hordhac bay waxay baalay Suudaan Mustafa Maxamuud Awseet oo ah
isimada SSC qayb muqdisho kula soo hadlay suldaanku xamar buu joogay markii arrintan dhacday marka waxay ogeysiiyeen inay tegayaan oo dhulkii rabaan inay daneeyaan dabeedna waa ka soo horeeyado wuxuu ahaa maaragtay gobol xaar buu ahaa wixii qoladaas inuu nala soo hadlay qoladaas dhaqanka inuu ku soo socota kabacdina waa soo dhaweynaynaa waan ku niri hadeerna wuu joogaa wuu nala socdaa isaguna insha allah marka shaqadaas waa sidaas weeye waa gartay doorkiina isimada SSC wax badan nabad baad ku baaqdeen magaaladiina weli lagama Somaliland kamay bixin maxaa arrinoo idin hor yaalla hadda oo damacsantihiin inaa warkaygu wacdiyahay dalkan iyo dadkan waxay rabaan inay waayahooda ka tashadaan inay isxukumaan inay ismaamulaan in dilkii iyo rafaadkii Muuse Bixi uu ku hayn jiray mid gudaha iyo mid dabadaba oo hayn jiray intaba inay ka badbaadaan oo xoroobaan oo ismaamulaan bay qorshahoodii iyo yoolkooda waa halkaas waqti way gaarayaan ilaahay baa garanaya laakiin halkaas ayaga yoolkooda waa halkaas ku socdaa waatay haddii Muuse Bixi sidaa ku adkaysto maxaa idinla gudboon Muuse Bixi dee wanaag kamaana sugayna anagu isaga wanaag kamaana sugaynin Muuse Bixi dadku leenayaa guryuhu duminayaa xasuuq buu wadaa adduunku waa arkaa anana difaac baan ku jirnaa waa iska celinaynaa marka intaasaa noo dhaxaysa anagii Muuse waatay garaad marka dagaalkuma waxaad leedahay hadda haddiina laga uu ka tig bixi waayo Muuse Bixi waa sii soconaya dadkan ilaa ujeedadooda gaaraan oo waddankan ninkan ka saaraan iyo rajiinkan iyo maamulkiisa iyo SNM-tan iyo nimankan dadka laynaya in laga saaro oo la geeyo sidaan horeba u sheegnay inta ka horeysa dagaalku soconaya markay tagaan meesha dhulkooda ka tagaan oo ka baxaan guryaha iyaga iyo dhulka iyaga iyo deegaanka iyaga markay ka baxaan markaas bay hadal kale bilaabaan laakiin inta ka horeysa waa in la iska saaraa weeye ma jirtaa cid danba waxba joojin ku dhawaaqday intii ka dambeysay guddigii ama sirdoonka Itoobiya ma jirto ma garan karno ma garanayn maana maqalno cid xabad jooji ku baaqday cid ay tahay toona ma nama soo gaaray waxa xiriir dowladda federaalka inay soo xiriirtay ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne ma jiraan dowladda xiriir waa samaysaa dowladda federaalka xiriir way samaysaa laakiin iyadu inta aad aragtayna meediyada ka tiraahdo bay yiraahdaan maaragtay in nabad dadkan lagu soo dabaalo iyo inay niyad wanaag ka muujiyaan baan ka aragnay intaad ka aragtaan baan arkayna wax qarsoon oo annaga iyaga naga dhexeeya oo aan hadda ku sheego garan maayo dhowr jeer baad ku celcelisay in magaalada Laascaanood ama gobolka Sool uu yahay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu madaxweyne u yahay arrinta wax jawaab ka hesheen Xasan Sheekh Maxamuud waa u sheegaynaa horena waa u sheegnay haddana waa u sheegnay dadkani waa dad Soomaaliyeed waa ummad calanka u dhimanaysa waa dad taariikh kule calankan iyo gumaysidiidkan kumayaal baa usoo dhintay hadeerna waa u dhimanayaan ama Xasan Sheekh ha joogo ama mid kale ha joogo dad wadaniyiin oo wadaniyada Soomaalinimada raba weeye Xasan hadeer isaga hoggaanka haya waxa la rabaa inuu fahmo dadkan waxay u dhimanayaan calankan iyo ummadan si fiican u fahmo jawaab fiican ka bixiyo waa taageer xabadii maanta ugu dambeysay way socotaa hadda dagaal socdaa baa leeyahay dibashada dhaawac baa dhacaya dhiig baa baxaya maxaad ugu baaqaysaa dadka iyo dowladda federaalka dariska dowladaha Soomaaliya daneeya iyo beesha caalamka iyo ummadaha daneeya Soomaaliya waxaan ugu sheegaynaa ninka kan ummadda xasuuqaya waa in adduunku arkaa waa in maxkamad la saaraa waa in maxaa la yiraahdaa adduunku hadeerto wuu dhaafay in nin dictator ah dadka laayo oo wuxuu doono sameeya adduunku hadeer waa ka gudbay maxkamad baa u dambeyn doonta adduunkuna waa arkaa in adduunku indho ku soo eegaan indho maaragtay fayow ku soo eegaan oo ay arkaan oo tallaabo laga qaado goor kastaba ha noqotay ayaanu doonaynaa adduunka waxaan u sheegaynaa dadkan waa la barakiciyey waana la laayay guryihiina waa lagu dumiyey waa qaxooti adduunku inuu u soo jeesto wixii qaxay oo haddee beedakeeda leeyahay adduunka aadayna ay u gurmadaan oo bannaanada ku dayacanna ay wax u qabtaan inta kale xabadda ku socotana in adduunku yiraahdo la hadlo ninka yiraahdo dadkan xasuuqa ka daayo ka daagardaradan iyo kibirkan dadkanina waa dadaalayaan way shaqaanaan way iska celinayaan 2 bilood hadda dagaalka socday wuxuu sheegan uu isbidayay inuu maamul yahay oo maaragtay uu dadkan cagta marinayo yani hadeerna waxa way guulo badan waan ka gaarnay mid kale waa ka gaaraynaa ummadana waxaan u leenahay iska celiya Muuse ma adkay waa jilcisan yahay hal celiyo hal sii jilciyo garaad ma jiraan cid xiriir aad la samayseen oo federaalka ka tirsan dowladda federaalka dowladda dhexe marka laga reebo dadaalada ay xildhibaanada gobolka u dhashay ay sameynayaan
xiriir anagu hadda dowladda aan xiriir aan hadda dowladdu way aragtaa xiriir uma baahna arrintani waa arrin caalami ah adduunka oo dhan baa arka igad baa ka hadlaysa adduunka ka hadlaya maraykan baa ka hadlaya wax cid waliba ka hadlayso gaari islaamba ka hadlayaan weeye wax maanta nin madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ah oo waddanka xukuma loo sheegayo oo laleeyahay hebelow kaale waxa qaba ma aha waa la arkaa wayna arkaan marka nin waliba meesha inta uu soo joogsado iyo dadkan way xoroobi doonaan wayna xoroobayaan min waliba inta uu joogsado ama waxa uu geystay baa ka dhaxayn doona insha Allah waa tagaraad Cabdisalaam ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka ku daawanaya bulshada Soomaaliyeed waxgaradka dowladda dhexe beesha caalamka guud ahaan ummadda daawanaysa waxaan ugu baaqayaa waxa weeye horta dadkan reer SSC iyo walaalahooda hiil walaal ay soo gurmaday waxaan ugu baaqayaa bil barakaysan baa lagu jiraa guryihiinii baa laydinku soo doontay waxa laydinku duminaya waa aqalkiina waad ahbiseen naga joog baad ugu tirahdeen waddankana lama lihid waa gurigayagii waa caruurahayagii waa xaasaskayagii war naga tag baan ku niri waa uu diiday adduunku wuu arkaa inaad cibaadaysanaysaan oo ninkii ku dhintaa isagoo soomanna uu yahay maxaa la yidhahdaa mujaahid yahay ninkii ku dhaawacana